magacaygu waa Ismaaciil waxaan joogaa oo hadda ka hadlayaa bartamaha magaalada Gaalkacyo gaar ahaan suuqa weyn oo magaalada Gaalkacyo waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda federaalka oo xalay lagu dhawaaqay waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqon doono midkii u cadaalad sameeyay Soomaali hadalkii uu ku hadlay madaxweynuhu Soomaali heshiisa ummadana la heshiisa dariskana la heshiisa caalamkana la heshiisa kuwii ka hirgeliya oo hadalkaas dhameystira inay noqdaan baan Ilaahay ka rajaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waa ugu hambalyeynaa hambalyaan leenahay in madaxweynihii federaalka uu dhashay ka bacdina uu soo magacaabay ra'iisul wasaare waxaan rajaynayaa inaysan noqon doonin ra'iisul wasaareyaashii hore iyo magaranaysa madaxweynayaashii hore oo mooshinada iyo iska keeni jiray oo ay noqdaan kuwa si toos ah u wada shaqeeya ummadda Soomaaliyeed maanta dhib badan bay ku jirtaa marxalad adag baa lagu jiraa abaaraha jira waxaa jira magaranaysa waxyaalo badan oo ummadda ragaadiyay baa jira colaad baa jirta marka dhammaan waxaasoo dhan waxaan ka baryaynaa inay noqdaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii waxaan isleeyahay uu heli doonaa boqolkiiba boqol uu heli doonaa waxaan ka codsanayaa dhammaan baarlamaanka inay macnaha ansixiyaan maadaama madaxweynihii uu arkay ninkii kaliya oo la shaqeyn karay inuu yahay kalsoonidiisina uu siiyay iyagana waxaan ka codsanayaa inay kalsoonidooda siiyaan dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay taageeraan ra'iisul wasaaraha cusub wuxuu soo dhisi doonaa oo ka filaynaa xukuumad cadaalad ah inuu soo dhisi doono oo Soomaaliya oo dhan ay ka midaysan tahay oo qaabkii lagu heshiiyay oo macnaha dawladdu ku dhisan tahay ay ku saleyn doonaan oo qolo walba oo Soomaaliyana xuquuqdooda ay marin doonaan tan waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaruhu inuu dhameysan doono 4 sano maadaama dad waxay u muuqdaan hore isula soo shaqeeyay bahda ma garanaysa waxbarashadana isla aha waxyaalo badan isla soo qabtay Soomaaliya oo dhan maanta ma garanaysa madaxweynaha markaan la doortay waa madaxweyne 2 jeer ku soo noqday weeye oo way aragnimo leh wax badan run ahaantii qaban kara sida noolo muuqato marka insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwii isla dhameysto Soomaalina horumar gaarsiiya ما شاء الله رسول الله صورته وسود بيننا وخلتكيسنا كل وكرجيننا إنه مدحوينا يدد شعب كل الصومال والله شقيان أد ورجيننا إن شاء الله وإنسان قبل كل رأي قرد خبي والله صح وكل الإسل وسارها مدحوينا ومقعبي كل وحورك الإسل وسارة الصوماليات إنه يهي كل هرنا كلن أما إنه حقام الدونه أما إنه متقنا كل هر لازم الدونه لو أبد بينكم دون توايو الصومالي بنايو مرول بإسل وسارة اللي دورته ما فهمت غير وصارقني ninka hadda ugu dambeeyay hadda xilka laga qaaday waa soo aragnay kan hadda la doortayna kulli waxa u maleynayaa inuu ku hor ka dubnaan doono waayo dawladdan waa dawlad cusub inkastoo madaxweynuhu uu mar labaad soo noqday wallaahi waxaan dhihi karaa xukuumad wuxuu soo dhisi doonaa xukuumadda hore ka qurux badan waayo tii hore isa qabsi baa ku jirtay waayo madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo waxa ay saystay oo maleynayaa nisa kan waxa umaleynaa cid haysata mala ninkaan waa nin mataqaana madax banaan cidna ka dawaqeelin mayso gabar baa mataqaana ceyrsanaysa loo haystaa ma jirto marka waxa umaleynaa tii hore mid ka qurux badan oo ka qabow oo ka fiican uu soo dhisi doonaa waxaan u arkaa ra'iisul cusub yani kii dadka bedeli lahaa dadkan loo doortay Allah ka dhigay dalkiisa dadkiisa anfaca wuxuu gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod kii dadka bedeli lahaana way insha Allah horta waa arrin fiican waxaan wada sugaynay maaragtay magacaabista ra'iisul wasaaraha muddadii u dambeysay yani waxyaalihii shacabka Soomaali weyn ay ku naaloonayeen in la soo magacaabo ra'iisul wasaaruhu ahaa madaxweyne kastoo meesha yimaadana wuxuu soo magacaabanayaa ninkii asaga hoobkiisa ah ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay aniga horta aqoon dheer iyo malihi laakiin waxaan filayaa insha Allah waxaan rajaynayaa inuu maaragtay noqdo mid dalka iyo dadka anfaca oo maaragtay wixii anaga danteena ah Ilaahay ku aadiyo uusan noqon mid u shaqeeya dana shisheeye niyow horta arrintaas xukuumadaha soo maray ra'iisul wasaareyaal badan isbedbedel badan jaalanti badan waa jiray xukuumadii adeer u dambeysay laba ra'iisul wasaare ahayd insha Allah waxaan rajaynayaa xukuumadan inay noqoto ra'iisul wasaarahan iyo madaxweynuhu dad isfaamo oo maaragtay isku shaqo noqdo insha Allah 4 sano soo socotana ku wada dhamaysta kursiga aysan noqon xukuumadii hore oo maaragtay ra'iisul wasaareyaashii badnaayna soo maray oo kale aysan noqon